Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay saddexda xayawaan ee ka badin kara haddii ay la dagaalaan libaaxa. Maadaama aan ognahay libaaxu inuu yahay boqorka duurka, balse waxaa jira xayawaano haddii ay la dagaalaan ay ka badin karaan ugu dambeyntii, mise ay dhaawici karaan. Balse maanta waxaan kusoo qaadanayaa saddex ka mid ah xayawaanahaas. Marka hore kusoo dhawow channelkeena oo subscribe saar si aad u hesho barnaamij walbo aan soo gelino barteena YouTube-ka iyo Facebook-ka. Xayawaanka ugu horeeya wuxuu yahay jeerta. Jeerta waxay dhaawici kartaa libaaxa. Jeerta waxay leedahay meeyo dheer midaasoo u sahlaysa inay ku badiso mise ay iskaga celiso libaaxa. Number 2 waa geriga. Geriga wuxuu leeyahay lugo dheer kuwaasoo uu ku dhaawici karo mise uu ku dili karo ugu dambeyntii. Number 3 waa yaxaaska. Yaxaasku wuxuu dili karaa libaaxa markuu soo dhawaado biyaha mise meeshuu ku nool yahay. Wuxuu kaloo leeyahay yaxaaska meeyo dheer kuwaasoo u sahlaya inuu ku dhaawaco mise uu ku qaniino.